waxaa maanta kooram la'aan u baaqday kulan lagu waday inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii kulanka ay soo xaadiri waayeen xildhibaanadii kulanku uu ku furmi lahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abdullaahi Abshirow ayaa sheegay in maanta baaqday kulanka baarlamaanka waxa uuna wax laga xumaado ku tilmaamay kulanka kooram la'aan u baaqdo waxa uu gudoomiye Abshirow sheegay in tilaabo laga qaadi doono xildhibaanada aan soo xaadirin kulamada baarlamaanka una cadeeyay isku xuquuq noqon doonin xildhibaanada kulamada soo xaadiraya iyo kuwa fasax la'aanta ku maqan gudoomiyaha ayaa sheegay in lacag laga jari doono xildhibaanada kulamada baarlamaanka fasax la'aanta ku maqan una digniin adag u diray xildhibaanada aan soo xaadirin kulamada xildhibaanada maqan waa la yeeriyay waxaana saxeed in la yeeriyo magacooda dadkii soo doortay ay maqlaan in xildhibaanada maqan yihiin xildhibaanada sharafta leh ee maanta jooga xildhibaanada maqan in isku meel ay galaan ma ahan ama isku xuquuq ay noqdaan ma ahan marka xildhibaanku waa la yeeriyay maalintii ku xigtan saana loo yeeri doonaa marka kulanka baarlamaanka ayaa maanta laga hor aqriyay magacyada xildhibaanada kulanka aan soo xaadirin xildhibaanada fasaxa la ogyahay ku maqan sidoo kale xildhibaanada fasax la'aanta ku maqnaa kulanka maanta doonka golaha shacabka wax laga xumaado ku tilmaamay in xildhibaanada ka maqnaada kalfadhiga dhawaan furmay ana kulankan maanta baaqday imaanaya xilli isbuuci hore xildhibaanadu ay ka doodeen mooshinka muddo kordhinta Abdullaahi Cabdi Xirsi warbaahinta Milga TV Muqdisho.